السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال واد محدثنتين dhammaanba intii ii codaysay ee suurto gelisay in abaalmarintan la isiiyo. Waxaan si gaar ah uga mahad celinayaa ururka haya ee isagu abaalmarintan i guddoonsiinaya anigoo weliba maqan oo hawl ku maqan hase ahaatee dadkii la shaqaynaya qaarkood baa jooga oo ii qaadi doona. Waan hubaa inay jiraan walaalahay Soomaaliyeed oo iga mudan abaalmarintan hase ahaatee tani waxay ii tahay farxad ballaaran waxayna ugu dhiirigelinaysaa inaan halkiisii kasii wado ololaha hangasha oo aan sanadkan 1 Agost bilaabay kana miro dhaliyo ujeedadii aan wadankayga Soomaaliya iyo dadkayga Soomaaliyeed asayda ugu qaaday. Waxaa iga go'an inaan ku dadaalo sidii dalkayga Soomaaliya nabad loogu soo dabaali lahaa dadkaygana ay darxumada uga bixi lahaayeen. Ahanahay taageeradiina ololaha hangasha idinka ayaan idin sameeyay idinka ayaa leh. Waa olole ay leeyihiin inta aan cod ka lahayn. Waa olole ay leeyihiin inta darxumadu ku daba dheeraatay haddana wax ka naxaya aanay jirin. Waxaad tihiin cadiga mid ah, waxaad tihiin cad Soomaali ka mid ah. Waxaan u baahannahay in la wada hadlo, la wada fariisto, la wada tashado, lagana arrinsado wixii inoo dana. Dagaalka iyo colaadda miyaa inoo dana mase inaan nabad helno saldhiganno sharaftii iyo qarannimadiina aan dib u soo ceshanno. Waa inaan hoos u soo eegnaa, isku naxariisannaa, iskuna kalsoonaannaa. Mar kale waa mahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ololaha hangasha idinka ayaan idin sameeyay idinka ayaa leh. Waa olole ay leeyihiin inta aan cod ka lahayn. Waa olole ay leeyihiin inta darxumadu ku daba dheeraatay haddana wax ka naxaya aanay jirin.